بسم الله واد mahadsan tahay dhageysigaaga waxaan ka codsanayaa clipkan like saar share na garay insha Allah ta'ala walaalkayga isha la dhibano qofka lama hadlayo qofka isha la dhiban ama sixirka la dhiban ama jinka la dhiban hal tusaale oo kugu filan oo qalbigaaga raali gelinaysan ku sheegaya oo aad ku tusaale qaadanayso waxaa jira dad fara badan oo maanta il iyo xasad iyo xanuunada la dhiban marka la yiraahdo quraanka ilaahay isa saara aan ba aaminsanayn oo shilinkoodii dhakhtar dhameeyay maskaxdoodii meel cilla ku dhamaatay walina aan natiijo haynin ku qancila ku raali noqon la aayaadka ilaahay iyo diintiisa waxa tusaale kuugu filan wuxuu qofku isweydiinayaa maxaa layga xastayaa maxaa layga waxaysanayaa waxba ma haysto ama inta yar aan haystaba wax la fiiriyo ma dad iga xoolo badan baa joogo dad iga ilmo badan baa joogo dad iga aqal badan baa joogo tusaale yar baan ku sheegaya waxa tusaale kuugu filan ilmo yaqoob nabi yuusuf alayhi salaam walaalihii la dhashay oo isku aabe ay ahaayeen oo isku arxan iyo isku dhiig iyo isku ay ahaayeen maxallihi jiray ay laba ruux walaalo wax ka weyn ma jiro ay ahaayeen maxay ku sameeyeen waa ilmo nabi ba shaydaanku wax u qurxiyay kadibna walaalkood bay xasteen ilaa ay god ku rideen oo ilaa aabahood oo nabi ah intii u yimaadeen ay been u sheegeen shaydaanka ilmo yuusuf u qurxiyay walaalkood inay god ku ridaan Soomaanta ma joogo Soomaanta mid ku dhibin ma Soomaanta midka dhamaanteen in rafaadinaya ma waxaan leeyahay dhammaan walaalahayga Soomaaliyeed meel kasta joogtaan ha dhihin maxaa laga ilaysan maxaan leeyahay ha dhihin la xasadka male arxan male sumad gaara male qofkan ka leexo kan waa waayeel kan waa yar yahay kan male hadduu xasadku uu galo ilmahaaga qayb kamida ilmo yuusuf waa tusaale kuugu filan ilmahaaga qayb kamida hadduu maanta galo way ku xastayaan meeqa walaala ah oo jeelasha isku guray meeqa walaala ah oo isxasto sixir isku sameeyay meeqa walaalo oo isdilay hadhihin markaa tusaalaha u soo qaadan maxaa layga xastay maxaa layga hadhihin ilmo yuusuf oo ilmo nabi ah ayaa walaalkood saa u galay xagee joognaa inagu oo waliba zamankaasi ka khayr iyo sharaf iyo qiimo badna kan hadda aan joogno ee la waashay ee dharka la dhigay ee ilaahay lagu kufriyay ee in ilaahay la caay banaanka la soo taagan yahay maba la aqoonba aafaadkan iyo baladan maba la aqoonba hadhihin markaa maanta hadhihin maxaa layga xastay waa lagu xastin ma aha inta lagu xasto baa hilfaha lagu laalaaban sirna lagu ururinayo nolosha dhan laga dheeraynaya haddaad rabto marka inaad ka badbaado hal shay laazim nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam sidii loo xastay wuxuu laazimi jiray adkaarta iyo weysada isagoo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam si laazimi jiray oo nabiga allah ana ka tagi jiray oo haddana ummadda ku sii maaragtay ku sii dhiirigelin jiray oo mar walba uu u dardaarmi jiray ha ka tagin adkaarta iyo san kula yaraan balada ay ka hayso ma filan kartid shargare walaalaha kala gaarsii aad baad u mahadsantahay. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.